السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا برنامج شر وكونا جعلان لها إن أنا بشير قريو وكساب سندورشوينكا لكن مالك ستوير أبوها عن فليا وحنجعلها إن شاء الله عدكينا سيدانا ومقدمتين أبراع دورشوينكا قدية فيت qoraal dheer oo soo saaray qoraal oo aad u dheer oo taftiran oo si fiican lagu faahfaahiyay oo lagu soo faahfaahiyay si fiican wax kasta ugu faahfaahsan yihiin oo soo saaray fahanta abraas in la akhriyo wuxuu ku kooban yahay 24 page yani dadka xiiseynayo arrimaha doorashooyinka arrimaha siyaasadda kale in maaragtay abraas ay akhriyaan muhiim waa dadka qaarkiis waxay isku dayayaan doorashooyinka in ay ka fahmaan مثلا دوdaha telefishinka oo kaleente ama maaragtay war saxaafadeed oo kaleente doorashada ku saabsan wax soo kale ama qof maaragtay soo istaagay baraha bulshada maaragtay meesha ka hadlo oo kaleente maaragtay sidoo doorashooyinka uga hadlayo kale in maaragtay ay doorashooyinka insaas meeshas ay ka fahmaan laakiin muxuma waxyaalaha qaarkiisa waa ka fahmaysaa weli waxaad ka fahmaysaa haddii abraacad akhrisid waxaad ka fahmaysaa dood kasta socoto wixii la keenay wax qaldan ma wax saxsan ma ka fahmaysaa abraac dood kasta ku saabsan doorashooyinka ama telefishin ha laga dhaho ama bara bulsha ha laga dhaho abraaca haddii aad akhrisid waad ka fahmaysaa meeshaas hadalkaas meelaha uu ka qaldan iyo meelaha uu ka saxsan yahay marka guddiga xalinta khilaafaadka cabasho badan oo timaado cabashooyin aad iyo aad u badan oo timaado cabashooyinkaas dadka qaarkiisa waxay u soo marayaan warbaahinta u soo marayaan qaarna maaragtay ayagoo doorasho aan loo qaban inay cabasho gudbinayaan sababtoo waxay shaki ka qabaan kursigooda in laga musuqmaasuq doono laakiin waxaa la yidhaha haddii habraaca la akhriyo waa ka fahmi kartaa waqtiga munaasibka iyo sida munaasibka oo maaragtay cabashadaada aad u gudbin lahayd waa ka fahmi kartaa taasna way ka caawinaysaa kaliya ma doorashooyinka habka uu shaqeeyo marka waxaan ku dhiirigelinaa maaragtay bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada banaadirigba kulli insha Allah abraaci doorashooyinka loo soo dejiyay soo hergeliyeen guddiga fit in insha Allah inay akhriyaan 24 page way dheer tahay maskaxda way daalinaysaa qodobo badan ku qoran فانت حير بدنا لغو الفهفاهيه ماشا لكن مهم جدا waxaa kaloo jirto qolooyinka raba inay wax musuqmaasuqaan qolooyinka kuraastiin loo musuqmaasuq rabo iyo qolooyinka kale wax inay musuqmaasuqaan raanba ay guddiga ku jiro habraacaas aad u nacban yihiin ma jecla sababtoo waxa habraacaas khaladkooda ka shifaa way nacban adduunka way nacban waxa waxay jecelina abraacas in la baalmari jecelina arkaan in la baalmari kariyo jecelina infaanta inay doorasho qabtaan oo habraac aan asaas u ahayn ay jecelina inay qaba karaan doorasho ay qabtaan habraaci lama tixgelina habraaci lama maaragtay ma lagu dhaqmin ya doorashadii khalaas waa la socodsiiyay inay saas dhacday jecelina adduunka habraaci u nacban yihiin infaanta marka arintaasna waa jirtaa waxaa marka oon arkay dadka meelaha qaarkiis inay ku wareersan yihiin meelahaas waxaa ka mid a matalan shirkii hadda uu ra'iisul wasaare guddoominayo oo madasha waxaa ku jirtay habraaca oo doorashooyinka in maaragtay dib u eegis lagu sameeyo habraacaasna waxa waaye oo dib u eegis lagu sameeyana waa jaa habraac lagu shaqeeyay kuraasaaba ku soo baxdayba infaanta shirka markii la qabanay oo shirka madasha la qabanay oo ra'iisul wasaare uu shir guddoominayo oo maalin hore maaragtay la soo xiray hortiisa doorasho la qabtay doorashadan hadda socoto kuraas aaba ku soo baxeen marka dadka waxay dhaheen doorashooyinka dib in loo laabto kuraastaas in la kansalo dib loo waraabto dadkaas dib maaragtay isku soo sharxaan laakiin ilaa hadeer maaragtay wax oo waxaas oo kaleente oo maaragtay oo dhacay ma jirto wixii soo baxay hor loo soo baxay waa la socodsiiyay waa dhamaatay
marka laakiin habraacan wuxuu effect gareynaa oo cusub inta kuraasta dhiman uu effect gareynaa soo ma marka laakiin kuraasta dhiman maxaa la yidhaahdaa habraacan ugama duwana habraacay hore waxba badan ugama duwana marka dadka qaarkiis way ku wareereen khaasatan nuqtada oo dhahayso kursiga doorashada waxaa loo qabanaa jifooyinka iyo qabaa'isha oo kursiga ka dhexeeya loo qabanaa waa meeshaasay arkeen waxay dhaheen maxaa waysaan marka kuwii kale oo ku doodayay maaragtay kuraasta waa furan tahay waa daahfuran tahay waxaasoo kale waa nuqdooyinka maaragtay ayka ay dadka rabaan inay ku maran habaabiyaan meelahaas way qodobadaas way ma fahantay marka qodobkaas laakiin qodob cusub ma aha qodobkaas ma cusba qodobkaas wuxuu ku qornaa doorashadii xasan sheekh ku qornaa doorashada haddana oo kii hadda oo la qabtay shirkan ka hor qodobkaas uu qornaa ma fahantay haddana aslee la soo celiyo waxba laga bedelin ma fahantay marka maxaa la yiraahdaa marka jufooyinka iyo qabaa'isha maxay kala duwan wax ay kala duwan ma jirto dada qabiilka wuxuu u yaqaaneen jufo ma fahantay mid taas mid waaye tan kale waxay noqon kartaa qabiil kasto jufooyin hoos uu ka kooban yahay dhowr jufo afar jufo مثلا دور maaragtay saddex jufo oo ka kooban yahay mafahanteen marka jufooyinkaas hoose ay qabiilkaas isku keenay oo qabiilkaasi ka tirsan kursigu ka dhaxaya macnaha kaas way laakiin qabiil dul saar wax la dhahay ma jirto haddii doorasho noocaas oo kale hore ay u dhacdeen khalad ku dhacday haddana insha Allah mustaqbalka waxaan rajaynaynaa inaysan soo noqon insha Allah doorasho noocaas oo kale inta aan rajaynaynaa braacaas in kursi kasta braacaas inuu asaas ahaan yani asaas kursi kasta soo baxo in braacaas asaas u yahay rajaynaynaa insha Allah intaas idin dhihi lahay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum